ciidamada qaybaha guutooyinka iyo ururada gaar ahaan koobaad iyo labaad saraakiisha ciidamada saraakiil xigeenada dableyda waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan kugu xijinaa ciid wanaagsan adinka iyo carruurtiina iyo ahaladiinaba waxaan leeyahay ciid wanaagsan marka hore waxaan idinkaga mahad celiyaa dadaalkiinii iyo dadnimadiinii iyo dulqaadkiinii wax badan ku soo dulqaadateen haddaadan dulqaada lahayna maanta halkan lama joogin marka waa ku mahadsantihiin waa idinkugu hambaleynaa mar kale ciidanka dhammaantood iyo ciidamada qalabka sidaba waxaan ugu hambaleynaa guulaha wax ku oolka ee la gaaray ee maanta la dul taagan yahay iyo walaystay al-shabaab in laga ceeriyo magaalada muqdisho magaalooyin kalena gacanta lagu dhigay ilaaha ku mahadsan subxaanahu wa ta'ala thumma waxaan idinkaga mahad celihaynaa يعني waxaan uga mahad celinayaa dadkii ka qayb qaatay oo ay ugu horeeyaan ciidamada xoog inta dib ama intaan ka gudbinba waxa shaki ku jirin rag badan oo saaxiibo ah oo dhufayskeedun kula jiray oo inay naftooda ku waayeen kuwa kale inay ku dhaawacmeen adinka dhidid baa kaga baxay ujeedadu marka ma aha in wax la dilo kaliya ma aha la dilo ujeedadu ma aha ujeedadu waxa waaye in nabad la abuuro in cadawga dalka laga qabto ummadda Soomaaliyeed la badbaadiyo nabadooda in la ilaaliyo karaamadooda in la soo celiyo dal aan lahayn dal sidii kala iyo gabdho sidii kala ah oo aan lahayn dad habeen maalin u soo jeeda sharaf ma heli karo dal walba oo dhisan waxa dhisay dadkii u dhashay waxa dhisay adinkoo kale dawladda Soomaaliyeed maxay ahaato 19 burburtay meesha ay ka burburtay waxay ahayd ciidanka meesha markii hore ay ka dhisnaayeen ciidanka ahayd marka dawladda meesha ay ka dhisman karto waa ciidamada xoogga iyo ciidamada qalabka sida intooda kale ciidamada xooggana waxay ku dhismi karaan inay yihiin ciidamo hadaf weyn aaminsan hadafkay aaminsan yihiin maxuu yahay inay difaacaan dalka sharaftiisa iyo karaamadiisa midnimada ummadda Soomaaliyeed nabadda dadka Soomaaliyeed يعني madax banaanida dalka inay u diyaar u yihiin inay u dhintaan u dhaawacmaan ciidan aaminsan aragtidaas ayaa difaaci kara dalka sharaftana soo celi kara taas waxay keenaysaa inaan ka run sheegno waxaan halka u nimid inaan ka run sheegno waxaan qoraga u qaadanay inaan ka run sheegno waxaan ciidanka u nahay dalkan waa dal Ilaahay khayr badan siiyay dadka Soomaaliyeed waa dad walaalo ah laakiin waxay u baahan yihiin dadaal la isugu keeno lagu mideeyo waxay u baahan yihiin cidda dhibaatada ku haysa in laga kor wareejiyo shabaab ma idin la tahay inuu baryo ku baxay muxuu ku baxay ku bax iyo qoryo marka cadawgu waa tiro badan yahay cadawgu shabaab kaliya ma waa tiro badan yahay waxa jira mid dhaawacaya ciidanka sharafkiisa waxa jira mid dhaawacaya qarannimada Soomaaliyeed mid dhaawacaya jira cadawgaas oo idil maxaa loogu talagalay ciidamada loogu talagalay in wax ka qabtaan meesha adinka ka dhimanaysiin ka dhaawacmaysiin dad idinku dhex dhuumanaya waxay ku mashquulsan yihiin dadka inay mobilada ka qaataan guryaha inay jabsadaan sumcadda ciidanka inay haleeyaan waxay la shaqeeyaan dadkaas al-shabaab sababta waxa dadka marka la dhibo waxay leeyihiin ciidamadii ana dhacay waxa noo fiican shabaab aan noo fiicnay leeyihiin taas dhibaato Soomaa waa dhibaato marka waxa la rabaa qofku waa khaldama laakiin ciidanka hadii khalad ka yimaado maxaa loogu talagalay waxa jira wax la yiraahdo discipline waxa jira maxkamad ciidan hal raba waajibkiisa in la marsiyo maxaa yeelay sumcadda ciidanka oo dhan in 2 qof 3 qof 10 qof ay u baabado macquul ma mida jira raaliga ahaada waa iska saraxoon aniga mushaarkiisa iska qaata oo difaacan kula jiro ma jira ama ma jiro xukuumadda istaninkaas inuu mushaar qaato gurigiisa jiro ya waa ina soo saartiin liiska nasiya waxa la keenaa mid dhalinyaro ah oo boodaayo oo idinka horeeyo dagaalka idin la gala maxaa u haysatiin in guriga jiifa oo biilkiisa marka mushaarka la qaado inta soo istaaga mushaarka adinka idinka hor qaadanay waa huba dadka aan difaaca ku jirin mushaarka idinka hor qaataan waa gartay dadka inay qaataan bidii diiday kuwa badan mushaarka ka go'a oo difaaca ku jira kuwa aan difaaca ku jirin mushaarka qaataan عقل ما نقول نتاس
ma noqonayso ala socoti dadaal fara badan ayaa lagu bixiyay ciidamada raashinkooda in la helo mushaar in loo helo hub fiican in loo helo dadaalkaas waa wadnaa laakiin waxaan rabnaa inaan caawisiin maxaa nagu caawinaysiin dadka dhibaataynaya sumcadda ciidanka dadka liiska baanta ku jira waa inaan ka soo saarna meesha dawladnimo run ay ku dhisantaa baan kuma dhisanto run ay ku dhisantaa saaka waa soo shaqo tagteen kulligeena shaqadiina qabanaysa ninna wuxuu rabaa gurigiisa inuu joogo oo mushaarkiisa ku qaato ma suuragelaysa taas dawlad kuma naga karo meeshii laga rabay hal guuto maxaa noo imaanaya laba urur soo fadhiisanaysa maxaa liisku waa bannaan yahay inkastoo maxay ahaato abaanduulaha uu ii sheegay yani guutadan wuxuu yidhi tirada waa dhadhowda laakiin waxyaabo kala jirjiro yar yar maxaa yihiin waxa jirjira waa saraxona raalliga ahaada maanta ciid waa moogta ciid wax laysma qabsado marka wixii jira inaan sheego waa maanta wariyaasha anaga doodinina ma waa duubaysiin dadka inaad ogaadaan la rabaa maxaa u haysiin dadka tirada wax waa jiraan laakiin waa roon laakiin xagee wax ka jiraan ya ma la fahmay warkaas inuu istaago waa dadka waxa sameeyay waa inaad soo qabatiin gudoomiyaha maxkamadda waa kana waxaan rabnaa haddana maxkamad saarno dadka maxay ahayd farafariya gargaarka bani aadanimada annaga maxaa u dhimanaynaa maxaa u dhaawacmaynaa u dhimanaynaa dadkeena inay nolol fiican helaan war hooyayaashiin iyo aabbayaashiin iyo walaalihiina gargaarka la gaarsiin laayahay maxaa laga gaarsiin laayahay tuugadaas ama ciidankay ku jirta ama duurkay ka imaanaysa marka labadaba lama aqbali karo inaad fiican tihiin oo meesha hore aad ka timaadeen hadal kuma jiro cid walba qirsan maxaa yeelay haddaadan fiicnayna meeshaan lama soo gaarin waa fiican tihiin laakiin waxaan rabnaa inaad kusii dartiin khaladaadka yaryarka oo ku jira ciidanka dhexdiisa waxaan rabnaa in la soco taasaan aan sharaf ku yeelan karnaa waxyaabaha tira badan yani matalan adduunka haddaad dhegaysato qof aan weligii soomaaliya ka warrayna iska soo toosa caayow noogu dhaqaaqa waxau la socdana lama arko maxaa keenaya annagaa ishabayno soomaaliya maalin marka magacaada la soo qaado qof walba uu jirarucaanaya jiri jirto laakiin maanta ma aha maxaa la rabaa sharaftaas in la soo celiyo maxaa lagu soo celi karaa ciidankaa lagu soo celi karaa ciidankoo si sax u dhismay haddii unugtii ka koobneed 10 askari 10kii ay tahay kooxdii ay mataqaanaa 30 tahay horantii 90 tahay ciidanku waa dhismaa ciidanku meesha uu ka dhismo hoos waa kor kama dhismo janana fara badan waa haysanaa laakiin ciidanku janan kuma dhismo kala dhismo wuxuu ku dhismaa hoos unugoo ka soo dhisma unuguu ka dhisma marka unuga haddaad baan ka sheegtiin guutaday ku soo laabanaysa waxaa rabaa marka unuga in run laga sheego kooxda in run laga sheego horinta in run laga sheego guutada run in laga sheego markaasaan waxaan helaynaa ciidan sax waa og tihiin mushaarkiina iyo noloshiina waa soo barina uma baahna inaan soo barina dalkan khayl waa ka buuxaa dadka soomaalida diyaar la inay canshuur bixiyaan si mushaar fiican u heshiin laakiin adinkaa laydinka rabaa gacanta inaad dhiibtiin haddii amniga la sugo maxaa bilaabanaya canshuurta in laga qaado albaabadan xero waa furmaayaan canshuuraa laga qaadaa canshuurtaas marka la arooriyo waa mushaarkiina waxaa dhammaanaysa maalin walba liis inta la gudbiyo lagugu soo celin maya kan ma saxna meeqa bilood hadda mushaar laadihin 3 bilood ya لا صدع ya bisha afaraad todoba waxa soo dhan waxa la rabaa in laga maarmo waxa looga maarmi karana gacantiina ku jiraan lacagta aad raadinayso anaga adduunka aan ka raadinayna jeebkeena ku jirto dukaankaas ku jirto waxay uga imaan kartaa maxay yihiin nabaduna maxay ku imaan kartaa ciidanka oo run laga sheego ka imaan kartaa ma maqli jirteen wax la yiraahdo tifki taawaqurmi waxa loo jeedaa askarta qaar kamid ah inay inta baxaan tartiibko islaamaha suuqa u socda ama guryaha u socda ay mobilada ka qaataan inay guryaha baartaan inay dhaqan xumo la yimaadaan hadhow maxaa leeyahay ciidanka waxa dhan waxa sameeyay waxa la rabaa marka waxyaabahaas in dhaqanka xun aan la dirno askari waa gaajo kariya waa dhimo kariya waa dhaawacmi kariya laakiin xatooyin ma jiro waxaan rabnaa dariiskiina markay arkaan ciidanku inay farxaan ciidanku inay al-shabaabna ka ordaan adinkana inay ka ordaan yani shacabka inay al-shabaabna ka ordaan adinkana inay ka ordaan la isma saari karo marka waxaan rabnaa markay adinka idin arkaan inay idin soo ordaan ay farxaan iska gaajooda dhib malaha waa laga baxaa gaajada waxaan u dirirayna waa mustaqbal maanta ma meesha laga yimidna waa taqaaniin